madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniintiisa reer Mareykan ee wali jooga Ukraine inay degdeg uga baxaan dalkaasi. Waxa uu sheegay Ruushku inuu ciidamo badan dhigay xadka uu la leeyahay dalkaasi oo ay xiisad u cakiran tahay, isaguna aanu doonayn inuu diro ciidamo soo samata bixiya muwaadiniinta Mareykanka ee dalkaasi jooga haddiiba ay ciidamada Ruushku dagaal galaan. Biden ayaa sheegay in arrimuhu si degdeg ah isku bedeli karaan, waxaana hadalka madaxweynuhu imanaya kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha xubnaha ka NATO ay sheegeen inay halkaasi geyn doonaan ciidamo. Ruushka ayaa si istaba jooga u beeniyay inuu jiro qorshe uu ku doonayo inuu weeraro Ukraine, inkastoo in ka badan 100,000 oo ciidan uu geeyay xadka uu la leeyahay waddankaasi. Sidoo kale Ruushka ayaa bilaabay dowlatus ciidan oo baaxad leh oo ay la sameynayso dalka ay jaarka yihiin ee Belarus. Ukraine waxay ku eedeysay Ruushka inuu xanibay marinka badda madow. Aqalka Kremlinka ayaa sheegay inay doonayaan inay dhaqangeliyaan khadka cas si loo hubiyo in Ukraine aysan ku biirin gaanshaanbuurta. Waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ku boorisay in muwaadiniinta reer Mareykan ee ku sugan Ukraine ay si degdeg ah uga baxaan dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay la tacaalayaan ciidamo aad u tiro badan, ayna xaaladdu si dhaqso ah isku bedeli karto. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa Khamiistii sheegay in Yurub ay wajahayso dhibaatadii ugu weyneyd ee dhanka ammaanka